Ilaalada Shinzo Abe ayaa lagu eedeeyay in ay dayaceen 2 ilbiriqsi iyo bar ay ku badbaadin kareen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Japan. Khubaro dhanka amniga oo gaaraya 8 qof ayaa sheegay in ay ilaaladu isku geedaami kareen ra'iisul wasaaraha ayna badbaadin kareen haddii ay isku dayi lahayn arrintaasi. Fursad ayay xuseen in ay jirtay intii u dhaxaysay rasaastii hore lala waayay iyo rasaastii dambe ee dhaawaca haleeshaya. Khubaradu waxay dib u eegis ku sameeyeen muuqaalo laga duubay dilkii ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee dalkaasi Japan. Dilka Abe ayaa 8 Luulyo ka dhacay magaalada galbeedka ku taala ee Nara waxaana geystay nin adeegsaday hub gacan ku samaysa. Falkaasi ayaa naxdin ku abuuray dadka dalkaasi iyadoo dhif iyo naadir ay tahay in rasaas iyo hub la isticmaalo. Maamulka Japan oo uu ku jiro ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya ayaa qirtay baxsanaan dhanka amniga ee booliska waxaana uu sheegay in ay baaritaan ku sameyn doonaan arrintaasi. Marka laga soo tago khubarada dhanka amniga, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa goobta kula kulantay 6 qof oo goobjoogeyaal ahaa waxayna baartay muuqaalo laga duubay xagala kala duwan si ay u soo aruuriso warbixin faahfaahsan oo ku saabsan tallaabooyinka ammaanka ka hor toogashada. Ninka toogashada geystay oo booliska magaciisa ay ku sheegeen Tetsuo oo 41 sano jir wuxuu fursad u helay Abe isagoo u soo jirsaday dhowr mitir. Muuqaalku waxa uu xusayaa in aanay cidna ka warhayn halista ka soo socotay ninkaasi hubaysanaa. Booliska Nara oo mas'uul ka ah xoojinta ololaha Abe ayaa mar wax laga weydiiyay falanqaynta khubarada waxay sheegeen in arrintaasi aysan waxba ka jirin. Wakaaladda wararka Reuters ayaa u sheegay bayaan uu soo saaray waaxda waxa uu ku go'aansaday inaan si dhab ah u ogeyn waxa ka qaldamay amniga iyo ilaalada Abe isagoo diiday in faalo dheeraad uu ka bixiyo arrintaasi. Muuqaalada video ayaa muujinaya kadib markii lagu riday xabadda koowaad in Abe uu u jeestay oo uu eegay garabkiisa bidix. 2 askari oo ilaalaha ayaa isku dayay in ay kala dhexgalaan isaga iyo ninka toogashada geystay. Midna wuxuu kor u qaaday bacmadow oo khafiif ah. 2 kale ayaa u jeestay dhanka ay ka soo dhacaysay rasaasta iyaga oo u dhawaaday qiiqa. Inkastoo ilaalada Abe ay daqiiqado kadib ay la tacaalayeen ninka toogashada geystay ayaa xireen. Sarkaal ka tirsan saraakiisha howlgabka ayaa waxa uu sheegay in khaarijinta ra'iisul wasaaraha la khaarijiyay dhinacyo badan ay ka dambeeyeen waxaana uu sheegay in ammaankiisa ra'iisul wasaaraha uu ahaa mid aad u laciibsanaa. Waxaa meesha ku sugnaa ciidamo ku filan sugidda ammaanka laakiin ma jirin dareen loo hayay halista ayuu yiri sarkaalkaasi ka tirsanaa ciidamada howlgabka. Saraakiil boolis howlgab oo ku sugnaa goobta ayaa waxay sheegeen in arrintaasi aysan feejignaan badan ay ku hayn saraakiil laamaha amniga. Booliska Tokyo oo mas'uulka ilaalada siyaasiyiinta muhiimka ayaa su'aalo u gudbiyay booliska Nara. Wakaaladda wararka AFP ma suurtagelin in ay hesho qofka toogashada geystay si ay su'aalo ay u weydiiyaan waxaana ay sheegeen in ilaa haatan aan u suurtagelin inay wax ka weydiiyaan arrintaasi. Markii ra'iisul wasaarihii hore u istaagay inuu hadlo, ninka toogashada geystay ayaa lagu arkay gadaasha muuqaalka isagoo u sacabtamaya ra'iisul wasaaraha.